kulanti wacan wanaagsan daawadeen meel kasta dunida aad ka joogtaan halkan naga daawanaysaan waa Astaan Sports oo barnaamijkeeni falaqaynta ciyaaraha barnaamijkuna waxay idin socodsiinayaan anigu Cabdisaaq Bindha ah barnaamijku waxa igu martiya Cannaan Bedel Cabdi oo ah khabiir dhanka ciyaaraha oo aad muddo badan u la socday sida ciyaaruhu u socdaan sida waliba ciyaaraha horyaalka Yurub Cannaan marka hore ku soo dhaw Astaan Sports waan dhaw walaal mahadsan Cannaan kulli barnaamijka falaqaynta ciyaaraha ayaan waxaan ku eegi doonaa ciyaaraha xiisaha leh ee ka dhacay horyaalka Yurub gaar ahaan ciyaartii xiisaha leh ee u dhaxaysay kooxda Liverpool iyo kooxda Barcelona bal Cannaan ciyaartaas maxay ka duwaneed ciyaarihii hore ka dhacay horyaalka Yurub sida wareegyadii wareegga lixtamaad wareegga sideedaad maxay ciyaartii ka duwaneed bismillaahir rahmaanir rahiim horta ciyaar waxay ahayd aad iyo aad u adag runtiina labada kooxood taariikh weyn bay leeyihiin championka ay aad khatar ugu yihiin Barcelona kala garoonkeeda Camp Nou waa garoomada ugu adag Yurub marka laga ciyaarayo Champions League sidoo kale Anfield isaguna waa sidoo kale kooxda Liverpool iyaduna waa koox aad u weyn oo koox adag marka dadda ciyaartooda lama filayn in horta ciyaartan lugta hore ay ku dhamaato 3 ay gaadho dadku badanka waxay lahaayeen ciyaartu is ceshanaysaa ciyaar isku furmay noqonaysaa iyo Liverpool haddii laba laga dhaliyo gool adu way keenaysaa laakiin marnaba la isma lahayn Liverpool eber ay ku tagaysaa maadaama markaa kubad adkaysi la ciyaaray oo qaab difaaceedna aad moodo inaanay Barcelona idan looga baran haddana maadaama ay aragtay Liverpool inay tahay koox yaacaysa oo weerarkeedu waxa uu leeyahay ay u gashay qaab difaaceed ay kula ciyaartay adkaysi badan maadaama ay sameysay markii dambe ay noqotay markaa Liverpool inay u ka soo baxo yara daaliyo inay jaanisadi lumiso waliba Keita dhaawac qofkii kubadda u jiidayo Nabil Keita ahaana oo ka dhaawacmo marka Cannaan macalinka Klopp Firmino dhaawac uu ku sheegay Sturridge baa fadhiyay Shaqiri baa fadhiyay halkii bal is oran karaa macalinku khaladka ugu weyn ayuu ku sameeyay markuu shaxda dhigay ama tashkiilada ku soo galay garoonka sidaan filayo macalinku wuxuu khalad ku sameeyay horta shaxdiisa laba ciyaartoy baa dheeraad ku lahaa Wijmandam ninka la dhaxdo sax oo uu ka soo dhigay 9 sax iyo Gomis oo tuu ka dhigay oo uu Kiera u fariisiyay Arnold u fariisiyay labada qalad ayaa ku jiray ciyaarta Liverpool oo ciyaartadii kooxdii layna baxay ciyaar u Gomis lahaabo ma ahayn ciyaar Gomis lahaabo ma ahayn maadaama Arnold marka hore kooxda la haystay oo Arnold iska ciyaaristay haydo oo ku soo qadimay ciyaarta si uu ciyaarta jaanqaadkeeda ula helo difaac u la haystay Gomis laakiin difaacan goolkan ugu horeeyay laga dhaliyay Suarez ka dhaliyay qaladka isaga keenay oo ciyaartana uu hore u soo baxay ciyaartooydan difaaca lama haysan sidaa darteed maadaama ciyaartooy lagu soo kordhiyay ahaa qaab ciyaareedka Liverpool uu ka yar dib dhacsanaa oo ciyaarta lama jaan qaaday sidoo kale Firmino dhaawac muruqa uu qabay marka Firmino dhaawaca uu qabay ay Barcelona kaga faa'iiday way Firmino uu yahay kubad sameeyay uu yahay sax sidaa darteed Maane iyo Saalax qofkii kubadda uu sameeyay isagoo playmaker macnaheedu weeyaan marka maadaama ciyaartooyga ka dhaawacmay Firmino gaabis baa ku yimid weerarkii Maane kale aad loo markay ma muuqan marka Maxamed Saalax oo kale isagoo taanaysa uu helay laakiin uu lumiyay oo kubadii baanu saxay marka Cannaan ciyaartan qodobada aadka loo diiwaan galiyay waxa kamid ah ciyaaryahanka Leo Messi waxa la yiri goolkiisa 600 ayuu dhaliyay muddo 14 sano ah bal Cannaan Leo Messi intuu kooxda Barcelona joogo 14 sano maxaad ka oran lahayd adoo Leo Messi runtii Leo Messi ciyaartooy aad u qiimo badan weeyaan ciyaartooydan dunidana sida ay tababarayaashu sheegaan imka bariga Arsenal ka hor yimid oo kale odayga winger baa la weydiiyay lagu yiri ka waran Leo Messi wuxuu sheegay wuxuu yiri waxna la ciyaaray nin duni kale ka yimid sax marka ciyaartooy badan laga weydiiyay hibo ayuu leeyahay bay dhahdeen kubadda cagta sax oo macnaheedu dadaal badan ma galo qaarkood waxay leeyihiin ninkan bashar ma ahaba hayo dadka qaar baa adu binaadam uu yahay laakiin waxaan hibo qof kasta hibo leeyahay marka hibada markaas kubadda cagta Messi isaga kubadda isaga moodaa inuu la dhaxlatayba oo nasiibkiisuna aad u badan u fiican yahay xaq qaranka laga yimaado kooxda Barcelona runtii dadaal badan buu galo ciyaartooy imka la mid oo Barcelona soo maray ma jiro waxa la wixii hore oo dhan ciyaartooydii hore oo dhan taariikhdoodii uu masaxay marka sanadkan waa dhaarsiin baa la yiri horta garoonka Camp Nou wuxuu ku balan qaaday inuu keenayo koobka Champions League oo ka hor intaan uu bilaabin ciyaareedka horta lugtii hore way la galeen oo imka ciyaarta dambe ee Liverpool 3 yeber waad bi adagtay waliba 4 yeber bi soo baxaysa taasina waa natiijo aad u adag oo xaqiiqi dambe laakiin waa feen kara oo maadaama Barcelona kubad adkaysi u badan ciyaarto waxay noqonaysaa in haafka hore ciyaarta ay ciyaar adag oo dhexda u badan oo
oo de magaranaysaa aanay Liverpool fursad badan samayn karin ee laga yaabo inay u ekaato marka cadnaano ma la oran karaa kooxda Liverpool lugta labaad ee lagu ciyaaray garoonka Anfield comeback way samayn kartaa soo noqosho Liverpool markaad eegto in kubadda Ingiriiska garoonka Anfield ciyaartu 3-0 Camp Nou ay laga soo badiyay Nick Messi oo jooga marka waxyaabo fara badan aad eegto comeback ma samayn kartaa kooxda Liverpool comeback ma samayn karto waxyaabahan ay samayn kareen wax kamid ah Liverpool oo kale waa koox yaacaysa Barcelona barigii hore kooxda iyaduna socotay ahayd waxa markay saafiyeen iyo stii joogeen waa koox lagu soo celin karay laakiin iminka maadaama Arturo Vidal iyo Rakitic iyo Busquets dhex taagan koox socotaba maaha oo ciyaartoy kale u dhaqaaqa waa Lionel Messi marka ciyaar taagan bay Liverpool laga yaabo sidii tii hore tan Camp Nou kala ka dhacday in lagu ciyaaro jaafaajir qoode ay kubadda magaranaysa aday gasho ayaa laga yaabaa marka Liverpool sidee sababta darteed baan comeback ku samayn karin haddii Liverpool ugu badato waa haddii hal gool keento hal gool keento laakiin gool la'aan ciyaarta laga bixi karo ma Barcelona badan gool la'aan kuma bixi kartaa Barcelona sidoo kale idina gool la'aan kuma bixi karto Liverpool de weerar bay soo tagaysaa oo xama hayso waa laga soo badiyay hore 3 gool loo saaray yani qodobka aad cadnaan ciyaartan xalay la diiwaangeliyay waxa kamid ahayd in ciyaaryahanka Messi goolkiisii 26aad uu ka dhigay kooxaha Ingiriiska waliba koox ugu badan uu ka dhigay inay tahay kooxda Arsenal iyo kooxda Man City oo 6 gool ka dhigay bal ka waran kooxaha Ingiriiska Messi sidii isku yihiin kooxaha Ingiriiska waa kooxaha ugu badan oo goolash ka dhaliyay aan filayo 9 gool ma leeyihiin sax sadarteed Arsenal baa ugu sarreeyay 9 gool 9 gool ku dhigay Manchester United champion ka qaadayba Liverpool oo aan kooxdii aan ka dhalnahayna waa kii ka dhaliyay xalay toor ka dhaliyay 2 gool sax marka kooxaha Ingiriiska wixii kooxaha Ingiriiska badankooda ay iskoor yimaadeen u kala yeeshay kala Tottenham dee wax ka dhaliyay 2 gool iyadana oo sanadkan ay group hayeen Manchester iyadana 4 gool ka dhaliyay Chelsea 3 sax marka kooxaha Ingiriiska ugu sarreeyay kooxaha uu liigu ka dhaliyay gool sax sadarteed waa ciyaartoy runtii dee horta markuu ka hor yimaado caqabada oo qabashadiisu ay adagtay in la qabto marka ciyaartoygaas dee maarayntiisu haddaad ciyaarta hore maarayso tartama laga yaaba inaad maaraynin sax marka Messi lama joojin karaa le adduunkan maanta la jooga way ninkii kale Cristiano Ronaldo isaga sabtidii hore ayuu 600 gool u gaaray Messi xal tool ayuu 600 gool gaaray marka la isboog bardhigo labadan ciyaaryahan كل صحافة إن بدن بقارة دكتور أديك عنا أهان ميسي رونالدو مركو صهد القاضي بل أديكو لبدا عياريان أكل صفيني وحبيب كل في عين بالنقل عبده تانيو سيدا أدونك شيء بدن كدت كل هذا هناك كري واهب أو ده كبده واحد مدين لسور راعي إن كان واحد هو دلالي دلال كيه بدنا حديد ده نقطه ويسكينيه سيدا لكن هبده واحد قفكو أنا وده واحد بدن حاول بدن وقلينه دائما كوا كان كهري champion كريستيانو Juventus wareegiisa waa kan ayaga israatay Messi waa kan socda ka Messi ma maadaama qof nisir yahay oo jir yar wax laga yaabaa ha iska gaboobay laakiin inuu ilaa 36 inuu sii socdo oo kubadiisa socon karto laakiin Cristiano Ronaldo wax laga yaabaa intee uu gaabis maadaama sanadkan ku yimid kooxdii Messi uu bedelay Messi hay'adu bedelo Liverpool tagay Juventus wax laga yaabaa in hoos u dhac oo ku yimaado marka sanadkan oo kale markii uu joogay Juventus uu yimid koox kale maadaama wareegay inkastoo la iskala qabsaday haddana hoos u dhac ba ka muuqday oo sidii hore ee uu ahaa Real markuu joogay waxa mu ahay Messi maadaama sanadkan uu dadaal badan galay uu doonay in Champions League tartamo oo King Cup ka tartamo tartan laacid la tartantaan uu geysan sax marka la liigida waa kan ligii ka noqday goolintii uu hogaaminayaa liigi waa bay qaadeen isaga King Cup-kii goolintii Champions League hogaaminaya King Cup-kiina final bay fuuleen marka sanadkan isaga mooyaan cid kale u sharaxan xidignimada adduunka ma jirtaan ha meel barnaamij taagay marka waayo maadaama Champions-kii lugtii hore ku la galay labada kooxood la filayay inay Champions-ka yimaadaan final waa Tottenham iyo Ajax waa kooxda marka loo eego Barcelona inkastoo soo jirdhay Real Madrid iyo Juventus haddana ciyaartu waa ciyaar hal weeyaan game hal ciyaar weeyaan marka way isbedel bay keenaysaa 90 daqiiqo waan af koobte koox weyn koox yar bay kala yihiin marka awood badan baa meesha imanaysa Barcelona fuushantay marka imika hadii Ajax iyo Barca ay isku yimaadaan finalka kubadda Ajax ciyaarsan oo kubad furan oo isku diibay degdeg gool ku tagay Barcelona iyaduna waa saas oo kale maxad ciyaartaas hadii final imika isku yimaadaan dabcan imika Barcelona kale kooxo badan bay ciyaartan Liverpool ciyaartay oo kale la ciyaartay imika kooxda Atletico Madrid la yiraahdo kale ciyaartan la ciyaartay waa ciyaar kubadda oo laga haysanayo laakiin iyadu way taagnaanaysaa
deetana kooxda kale markay weerar soo gasho markay weerar soo gasho marka la weydaarinaya waa qaab counter attack oo kala dabar jibin marka Real Betis way kula ciyaartay Atletico Madrid way kula ciyaartay Liverpool oo kula ciyaartay marka hadii finalka ay fuusho Ajax la ciyaarto sidan qaabkan ay loo ciyaartay Liverpool ayay loo ciyaaraysaa de kooxda yar waa koox yar kubadda isku dhibtay Ajax tay soo baxdo waxa noqonaysa marka in hadii soo weerar tagto Ajax ha difaaceed waa difaac iska fudud Ajax marka la eego marka loo eego waa khatar bay ku yihiin marka Messi kala kubadda dhexda ka qabto de markii wax noqonaysa in goolka la gaadho oo daqiiqadoodan waan gartay way Adnan aan kaga man ciyaarta Liverpool iyo Barcelona u dhaxaysay haddana eegno ciyaarta u dhaxaysay kooxda Ajax iyo kooxda Tottenham ciyaaryahankii Harry Kane dhaawac uu ka yahay ciyaaryahankiisa oo ka maqan ciyaarta dhawto goloonkii Ajaxna waa tagay marka horan ciyaarta Adnan horta kooxdan Ajax Amsterdam waa koox horta garoonkeeda horta kuma fiicna sax oo sida la eegama kariyo Madrid oo kale waa laga soo badiyay sax Juventus oo kale way kula soo barbaraysay imika de Tottenham baa lagu horreeyay Tottenham baa ka soo badiyay garoonkooda maadaama ay ku noqonayaan horta waxay haystaan chance Tottenhamna way kala dhimantay oo de Kane ka dhaawacmay imika Son baa kacaya laakiin maadaama weeraryahankii de ugu khatarsanaa Premier League oo de Harry Kane oo Tottenhamna de khatar waxa uu ka dhaawacmay waxay noqonaysaa Ajax waxaad moodaa inay final fuushay ay taagantay meel kale loogu yeeray sax ciqaab ciyaareedkeeda iyo de sida ay u soo ciyaaraysay iyo kooxay reebtay marka la eego kooxda Ajax imika ciyaaraha ku soo baxday wareegga 16aad iyo wareegga 8aad awii ku soo baxday iyadoo garoonkeega ka baxsan ciyaartan waxa weyn ciyaartii ay ku ciyaaraysay garoonkeega Ajax marka ma laga yaabo caqabad inay kala kunto kooxda Tottenham iyadoo laftiga garoonkeega ku hadho kooxda Ajax taas waa suurtagal ciyaartay qabsi lama laha garoonkeega ciyaaraha ay ku ciyaaraysay waa horta de iyada lafteedu si kalisaab ku soo baxday oo la isma lahayn de markii ay Real ka soo badisay garoonkeeda ka soo badisay la isma lahayn de Real ba intay Bernabeu ugu tagto ay ka badinaysaa laakiin soo dhacday oo ka badisay oo waliba ciyaar fiican bay ka badisay haddana Juventus baa la lahaa Juventus oo Cristiano Ronaldo khatar ku jiro ay reebaysa waliba Atletico Madrid soo saaray waliba Atletico Madrid si khatar ugu soo badiyay marka Ajax maadaama ay labada kooxood soo reebtay gurigooda ku soo reebtay iyadana waa suurtagal in Tottenham gurigooda ku reebto waa suurtagal oo kubadda cagta ka dhacda badana laakiin si haddana Ajax waa koox kalsooni badan leh waa dhalinyaro oo ciyaartooyga Dusan Tadic oo kale Serbianka ayaa ugu khatarsan ugu weyn ma isaga daahan ugu weyn ciyaartooydan kale laakiin in Hakimiga oo kale iyo kan muxuu ahaa ciyaartooyo weeyaan da'yar laakiin waa arag waxa waa Tadic ninkaas ayaa arag waa marka ciyaartooyo da'yar oo isla qabsaday marka Ajax iyada laftiga waxa leeyahay koobka way qaado kooxdu ciyaaryahanadu way kala tagayaan oo wala si kala iibsado suuqa way ku kala ciyaartooyada horta mid baa la iibsadayo Dion oo kale waxay istay Barcelona waan gartay oo waxa uu tagay sanadka dambe ciyaartooyga kale siiska xidhan waa isagana Manchester baa doonaysa iyo waan gartay waxna marka adoo isoo koobiyo horyaalka Yurub waxaad leedahay kooxda Barcelona iyo kooxda waxa isku iman kara Ajax marka loo eego de imika si qaabkay u ciyaareen sax way adagtay in Liverpool ay Fereber kaanto oo ciyaarta natiijada Fereber ma ku soo baxaysa ciyaartooyda in natiijada Barcelona oo koox adaga ciyaartooyda khataayay in Messi ku jiro ay ahayn Fereber ugu bedesho ogta labaad way adagtay waxay Ingiriiska cadnaan ku wanaagsan comeback marka waqti xaadirka la eego soo noqosho degdeg ciyaartooyda waagi hore laga yimaado ciyaartooyda kooxaha Premier League ma kuma fiicna comeback soo noqoshada laakiin xagga kooxaha Isbaanishka ku fiican xagga kooxaha Isbaanishka way ku wanaagsan yihiin oo de marka Barcelona kala de away hadad gasho si Paris oo kale ayaa de garoonka oo dhan baad mooysaa inuu kugu qaylinayo wala ku soo daadanayo marka waxa laga yaabaa in si yar fudaad ku hadho adigoo natiijo badan haystay sidii de waqtigii magaalada Tismantii ku dhacday garoonka Kaabnu Cadnaano isaga laftigiisu waa garoon argagax garoon aad mucjisa weeyaan waa garoon aad mucjisa oo de waxa waa taariikh badan ma ka dhacay oo soo noqoshaha taariikh badan ma ka dhacay marka de ciyaartooy barigii waqtigii hore Ronaldinho iyo joogeen de iyo Samuel Eto'o iyo ay joogeen de ka ciyaartooydii loo jiray ciyaar koox way la yar way la yara way la yar dhigay oo iska celinayeen laakiin imika intan kubadda cagta dhowr iyo 10 sano oo isku soo biiray waa adagtay in Kaamnu deha
lagaga badiyo صح adagtay marka comeback lagama fili karo kooxda Liverpool sideeda ha comeback de afar yeebara lagama fili de ha inkastoo de championku mucjis iska yahay صح oo badanka ay dhacdo in koox la filiyay inay wax ka qaldamaan dabeetana ay ciyaartu isbedesho صح haddana maadaama kooxda Barcelona tay صح de Liverpool inay afar yeebar ku reebto معقول ها way adagtay عندنا هذا سؤال كودي حاجه لي كوحده ليفربول واحد جرتي فاينل كوحده ميلان iyo kooxda Liverpool ay wada ciyaareen saddex gool guuriyay 5 كده هاف qaybtii dambe ciyaarta ay keeneen saddex gool marka Liverpool shu waagan imka jooga farq intee leeg waa dhaxeed soo Liverpool imka joogta Liverpool waqtigaas Liverpool imka joogta ka fiican صح laakiinse maadaama waqtigu isbedelay صح kooxaha ka hor imanaya iyaguna la dhigayo mesela Barcelona oo kale صح iyaduna waa koox adagtay oo marka Liverpool koox waqtiga loo eego kooxda Liverpool oo kale waqtiga saddexda ay keentay haafkii dambe صح labada tobarood ciyaaradee waqti macallin baa ha صح muxuu ahaa Ancelotti iyo waxay kala haayeen Rafael Benitez marka labada tobarood kale ay kala badiyay haafkii dambe uu ahaamay soo galiyay ka koox soconayay صح ayuu de ayaa qabtay ka way barnaamijkii falaqeynta ciyaaruhu intaas oo inaga yahay barnaamijku waxa igu marti ahaa Adnaan Bedel Cabdi oo khabiir sportis oo runtii barnaamijka maanta marti igu ahaa barnaamijkuna waxaan la socodsiinay anigoo Cabdi Saaq Bindha sida iyo salaamo Allah